hooyo Maryan Jaamac Cali waa hooyo dan yar ah haysatana carruur agoona waxaa la soo darisay xanuunkaasi oo ay dhulyaal u noqotay. Xanuunkaasi ayaa ka haleelay lafta dhabarka iyo ruug ka mid ah labadeeda lugood, sidoo kale waxaa istaagay qaarka hoose ee jidhkeeda. Hooyo Maryan waa dan yar, mana haysata waxay ku tagto amaba lagu geeyo goobo caafimaad oo lagula tacaalo xaaladeeda caafimaad. Haddaba hooyo Maryan waxay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda Muslimka uga baahan tahay caawimo islaamnimo. Cali Cabdi Xasan waa eheliyada hooyo Maryan, wuxuu ka warbixinayaa xaaladda jiridhicada leh ee ay ku sugan tahay hooyo Maryan, wuxuuna ummadda Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaanba ummadda Islaamka ka codsaday inay ku soo caawiyaan wixii ay u awoodaan hooyo Maryan. Geesta kale waxaa iyaduna si qiiro leh ummadda Islaamka codsi u weydiisatay inanay dhashay hooyo Maryan oo ah gacanta ku haysa hooyo Maryan imika. guriga la soo dhigay miya laga soo qaaday halkaas lagu keenay meel kasta waan soo mariyay berberaan soo mariyay hargeysa soo mariyay markaan soo mariyay adoo amri xaasil ruugaas waxa waa qalliinka ruugaas waa qayb gaar waa dalcad anana awood u lahayn ka dhabarka xangulaha saa xiriir la faysata lafta xangulaha haysatan waa qalliin baa leeyahay awoodna uma lihin feel wax ugu doonana maahay muxsiniinta waxaan ku codsanaynaa cid kasta oo soo caawin karta inay soo caawiya ishaas laga helay walaalo aanay waxba ka arkayn ay beeshbada hore waxa ku xigay walaal jilibka imikana xanuunku uu ku dhamaado waa qaarka dambe gabigiisa oo aanu bararay waanu waxaan dhahaayay mana kacayso waa taade taalo runta shan qof wax ka yarna walaal ma qaadi karaan halkaasaan walaal jiidjiida ciidaasoo guryahana waa way gali maxaan dhahay walaalayaal waxaan doonayaa jilibkaas oo qalliin noqdo gaara dhabarkan oo qalliin gaara noqday ana walaal awood iyo taltoona u haynin wixii aan u haynayna maxaan dhahay berberi hargeysa waxa inta aan ku geeynin ban wixii aan hayna noqdeen walaalayaal waxaan doonayaa in la soo caawiyo ummadda nabi maxamed meel kasta jooga in naga soo caawiyaan ayaan doonayaa walaalo guri aan galiyo ma lihin reermii baan ka keenay maxaan ariyaroon baan lahayn si yaraan way naga baxeen walaalayaal waxaan doonayaa in la soo caawiyo ummadda nabi maxamed baan doonayaa in la soo caawiso ilaahayna la qabto laanta xanuunkeeda waa kaayna ku sheegay dhowr sanadoodna halka dhibiyal bay wahay dadkii reermiga ahaa xoolo ka bixeen weeye awoodna uma hayno anagu jaarkan la yaala baanu nahay marka xanuunkeedu waa ku dhameeyay ilaahay ka bugtay ilaahay ka cabanaysa ilaahay ka xanuunsanaysa in la soo caawiyo caawimo ilaahay lagu la tiirsado yaan ilaahay ka doonaa anaguna deegankuna sidaasaan in baan idin leeyahay waa Maxamed Cali Ahmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ee Bulsha TV degmada Sheekh.